English News af Soomaali erayo cusub af Soomaali erayo cusub indigenous asalkii hore ama dadka inta badan waxaa loo isticmaalaa dadka asalka wadanka ama meesha bugcada loogu imaaday maxaa la indigenous people ama dadka citizenka wadaniga ah wadani ama dadkii loogu imaadan dhahayna meesha indigenous waxaad ugu dhawaaqay indigenous legitimate waa shay xalaal ah ama sharciyan xalaal ah ama la isku waafaqsan yahay indigenous waxaan dhahnay asalkii hore legitimate waxaan dhahnay xalaal stand up dii lagu dhaho waa istaagid stand up baa lagu dhaho istaag camal waaye stand up transmission gudbin tusaale hargabaa kugu dhacay qof kala ku tallaashay ama gudbisay you just transmission ay noqonaysaa haddii kale cilmi aad soo baratay bulshada aad usii gudbisay maxay noqon knowledge transmission ama transformation represent u taagan tusaale xildhibaan ayaa wuxuu ku soo baxay 5,000 6,000 oo cod wuxuu matalaa 10,000 ee cod ama 2,000 ama 3,000 ee qof ee dooratay iyo inta aan dooranin eri dhulkii laga soo doortay ayuu u taagan yahay ama matala ama stand for my nation waxaan u taagnahay qarankayga ama waxaan u taagnahay bulshadayda ama waxaan u taagnahay reerkayga adiga waxuun dheh u taagni represents u taagnaan shay noqon efficient hufan waa wax aan musuq maasuq lahayn oo aan khaladaad lahayn oo sidii loo qeexay ee loo dhigay loo fuliyey waa shaqo ama hawl si loo dhigay loo fuliyey it is efficient wax hufan oo nadiif ah interrelation xiriirka at least xiriir laba dowlad u dhexeeya xiriir laba qof u dhexeeya iyo wixii ka sii shay consist ka kooban Somalia consists at 5 to 6 regional government and central 5 maamul goboleed iyo dowladda dhexe ka koobanta your family consists 8 children and 2 parents waalidkaagu wuxuu reerkana wuxuu ka kooban yahay 6 caruura iyo labada waalid ka koobnaansho consist of ka kooban allies waa xulufo koox isxulufaysatay dhalinyaro ha noqoto group ha noqoto dowlado ha noqoto waa tiimam ama kooxo ama dowlado isxulufaystaan dhahnaa xulufo isxulufaystay allies express yourself haddii lagu dhaho muujibal muujin waxaad muujisa express your ability awooddaada muuji wadan hebel awooddiisu muujiyey ama hebel awooddiisu muujiyo kala camal expressing muujin waxaan malay muujin waa soo bandhigid waxaa tahay investing waa maalgashi ficil bay noqotay investing maalgashi investing maalgashi probable macquula possible alamida expectable la rajayn karo ama la filan karo macquula la filan karo consider artani ma dhawaaqayso consider tixgelin qofaa wax kuu sheegay so wuxuu ku dhahay you have to consider my request waa inaa cod tixgelisa tixgeli inaad u samaysaa waxaan ku idhaahdaa consider my request codsiga tixgelisa solemnly waxaa weeye si xushmad leh solemnly si xushmad leh haddaan ku celino English News af Soomaali erayo cusub indigenous waxaan dhahnay dadkii hore ama asalkii hore dadka meesha loogu imaaday inta badan dadka loo isticmaala legitimate shay xalaala stand up istaag transmission gudbinta ama wax la gudbiyo inta badan waxaa loo isticmaalaa gudbinta sida cudurrada gudba cilmiga la isu gudbiyo adi wax gudba represent u taagan tusaale waxaan soo qaadanay xildhibaan hadday
2,000 oo qof doorato 2,000 iyo dadka ay ka midka yihiin ayuu u taagan yahay uu ka matalaa meesha uu joogo. Efficient hufan waxaan ku sheegnay transparent ama nadiif aan musuqmaasuq iyo tuugnimo iyo xatooyo lahayn, waa wax nadiifa dheh. Interrelation xiriirka u dhexeeya 2 qof ama in 2 dowladood ama 2 kooxood. Consist ka kooban, tusaale waxaan soo qaadanay qoys of my family consists 6 children and 2 parents. Waalidka qoyska iyagu wuxuu ka kooban yahay 6 ciyaala iyo 2 waalid. aan dhahnay allies waxaan dhahnay xulufo isbahaysi dad iskoo haystay. Express muujin, express waxaan ku sheegnay muujin, ismuujin. Express yourself haddii la yidhaahdo sheeg ama qeex ama muuji naftaada camal. Probable investing dheh, investing maalgashi. Investing waa maalgelin, lacag haysataa waxbaa ku maalgashatay, dhul ha noqoto, xoolo ha noqdo, ganacsi ha noqoto. I want to invest in my money, lacagteeda maalgashadaan rabaa. Probable macquul ah, it is probable to be done this work. waxa macquula in shaqadan la qaban karo. Probable macquul. Expectable la filan karo ama la rajayn karo. Consider tixgelin, haddii qofku yidhaaho codsigu ku leeyahay markaasuu ku dhaxan codsigayga ii tixgeli, maanta codsigaan wataa codsigayga ii tixgeli, please consider my request. Ceremony si xushmad leh, ceremony si xushmad leh. marka insha Allah waa cashir gaaban oo aan 12 eray ka badnayn laakiin macno badan leh. haddii intaa akhrida oo qabato mid walba iyo macnihiisa kadibna bala isku daydo inaad jilmado ku samayso. tusaale tan dhaynaa consider, please consider my request. haddii lagu dhaho waa fadlan tixgeli codsigayga. Ceremony, he welcomed us ceremony, wuxuu noo soo dhaweeyey si xushmad leh. Accept, expectable, to pass the exam is expectable. inaad ku baasto imtixaanka waa mid la filan karo. Probable waa it is probable teachers will give us a summary lesson. waa macquul ama waa wax macquul ah in macallinku na siiyo muqarar ama summary ama sharaxaad kooban naga siiya cashirka. Investing, I would like to invest in my money. I'm investing my money. lacagtayda ayaa maalgashana. Express, can you express your power? awooddaada ma muujin kartaa? Allies, how many allies consist of in East African community? meeqa wadan xulufa ku ah East African community? Consist, how many members does your family consist? And interrelation, what interrelation do you have? maxaa xiriira oo kala dhexeeya adiga iyo Ali? What interrelation is between you and Ali? Efficient, is your work efficient? shaqadaadu ma tahay mid hufan? Represent, waxaan dhahaynaa how many members or community does your MP or your elected members represent? meeqa dad ah ama dad macnaha xubnood ayuu matalaa xildhibaankaaga aad soo dooratay. Transmission, can you transmit your knowledge to the community? fadlan cilmiga aad baratay ma u gudbin kartaa bulshada? Korantayna stand up, waad fadhidaa qof aa kusoo kor istaagay markaasuu ku dhahay stand up please, fadlan istaag. Legitimate, is your food parley legitimate? or cuntada aad cunaysa xalaal ma tahay? Indigenous, who is the indigenous people in Somalia? haddii la yidhaaho yaa waaye dadka asalka loogu imaaday Soomaaliya, dadka maanta ku nool Soomaaliya yaa waaye dadka asal ahaan loogu imaaday. su-aashan idinkaa kasoo jawaabay. intaasaa ku daynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.